عبدي يروكيو خضر السينما والله يا خضرة يورو عاجي حاجة سكوريجي الأبوان أمامي kulanti aboon oo wanaagsan idilhantii baa saxaabta qaaliga ku xiran channelkeena Lucky aad iyo aad baan idin salaamay meel kasta dunida daafeeda kaga sugantiin waa walaashin Lucky show muxibiye kala gacal baydiyaha aad iyo aad maasantiin meel kasta dunida daafeeda kaga sugantiin waxaan ka codsanayaa fadlan channelka dadku cusub tahay oo tahay markii koobaad ee soo booqato inaad subscribe saartid kambalelkana furtiisa aad u noqoto saaxiibka koobaad ee nagu xiran haddaad hore noola joogteena aad iyo aad baad maasantahay muuqaalada sii share gareelowda asxaabtaada like tirana ugu dhiirigeli wixii fikirkaaga iyo aragtidaadana commentiga xaq hoose noo soo dhig aad iyo aad maasantahay markoobaad iyo mar labaadba hadaba waxaan wadaa fanaanada caanka ah Khadra Cabdi Silimo oo runtii ah fanaanada kaliye aan oran karayo intaas oo milyan oo taageero ay leedahay waxaan ku leeyahay waa fanaanada kaliye meel kasto fanaaniinta jiro oo dhan waxaan ku leeyahay way ka taageero badan tahay wallahi waana fanaanada waxaan ku leeyahay rag iyo dumarba aan loo kala hadin ee la wada taageero aniguna shakhsiyaanteedan aad u taageero Khadra Cabdi Silimo fanaanadaas oo runtii ku sugan sinwad ognahay baryaha baan ogeyn waxay ku sugan tahay caasimadda Djibouti iyada iyo waxaan ku leeyahay boqoradii codka waa Yurub Maxamed Cabdi Genyo ugbad arag sano ka daran runtii waxaan oran karayaa saddex fanaan oo kala dhicin ayaa ku sugan Djibouti ilba laga arko runtii waxaan oran karayaa wajidkii calafka inan kasto calaftoona Djibouti wad ka soo yeertaa mid yar oo diiran hasan mudugnaay Yurub Maxamed Cabdi Genyo oo lagu guursaday iyadana Djibouti ugbad arag sano iyadana xaajigeeda xagga way u guurtayba hadaba maxay tahay inantan la yiraahdo Yurub Genyo iyo fanaanada caanka Khadra Cabdi Silimo oo ku soo dhaweeyay Iglan Saalax ay ku soo dhaweeyeen Djibouti runtii fanaanada soo shaacisay in waxyaabo badan ay qaban doonto inay waxaan ku leeyahay hawlo badan ay qaban doonto inay fanaaniin badan waxaan ku leeyahay showyo la dhigi doonto inay tagi doonto dalka Kenya amba Nairobi dad badan ay kula kulmi doonto runtii fanaanadaas oo bariyaha aynaan ku arag shaashada amba heesa ay qaadayso amba waxaan ku leeyahay social media ay heesaheeda iyo xaseen ka raagnay hadaba fanaanadaas oo soo wada wacdar aan hore loo arag runtii say waday amba waxyaabo imka qorshaysan heesa badan oo kamisuun u ah runtii waa tii bari dhowna loona jiray Khadra Cabdi Silimo oo dhoofaysa sidoo kale waxa jirtay in dadku bariyahan balahaayeen fanaanada caanka Khadra Cabdi Silimo ninba guursaday maxay wasiirba guursaday xilbaanba guursaday waxta isku dhex marayeen laakiin haddana waxa shaacisay barnaamijyada in qaban doonto dhoofkeedii waxa ka jira barnaamijyadaas oo leefa inay soo deey doonto waraysigan insha Allah sugayna Iglan show ay ka qaban doonto kaana sugayna insha Allah wixii jira iyo sheekadaas runta iyo beentayba iyada afkeeda ka shaacin doonto runtii waxaan u maleynaa sheekadaas in wax badan ka jiro ay tagays insha Allah Ilaahay karaan noqdo hadaba ma la oran karaa maadaama fanaaniintii caanka hayeen fanaaniintii ugu caadagayga Soomaalida fanaaniintii xidigayga ugu caada inay gabihaantoodba ku sugan yihiin jamhuuriyadda Djibouti hadaba ma la oran karaa Djibouti waxay isku bedeli doontaa hoyga fanka kolba meel buu ka shiday meesha fanaaniinta waxaan ku leeyahay codka macaan codka toolmoone waxaan ku leeyahay ugu cadgayga Soomaalidu digto meesha iskugu tagaan ba hoyga fanka ah kulay ayaan badho tolo jigjiga ka shidnayd Hargeysa ka shidnayd wad ognaayna fanaaniinta ugu badan reer Hargeysa inay Hargeysa joogan iminkana ay Djibouti u diga rogteen fanaaniin badan aad u tiro badan bar hadaba halkaas maxaa tolo ka dhici doona inta kala dad badan baa jira ku mashquulo yiri sababta Khadra Cabdi Silimo ay u tagtay waa maxay Djibouti sababta ilaa xilligan ay Djibouti ugu sugantay waa maxay hadaan Khadra Silimo la guursanin waa maxay sababta ilaa xilligan u fadhida Djibouti kulay runtii waxaan oran karayaa anigu markaan daan fikirkayga aragtida eego Khadra Silimo horta waa gabadh sharaf iyo karaamo bay naga mudan hadeen nahay Soomaali oo dhan kulay waxa ku furmay problem family marka mashquulka iyo stresska ay iska soo saartay jawiga yara bedelanaysa sin wad ognahay kooxda xidigayga iyaguna way isku dhaceen waana sheegtay afkeeda way ka sheegtay in isku wada raaceen meel ka wada mareen sidoo kale inay dhibaato kale iskaga jirtay wada ogeyn marka waxaan oran karayaa way jawi bedelatay halkaas stresska iskaga soo rabinaysa habi markay noqotay iska imanaysa insha Allah
وانا فنانات رنانتي هويga fanka iyo meel kasto Soomaali degto iyo meel kasto dad af Soomaali ku hadla ay joogan sharaf iyo karaamo iyo maamuus iyo ixtiraam badan ka mudan waa fanaanad runantii waxaan ku leeyahay afkeeda mas'uulka ah waxaan maqla journalist oo qaadi jiray arshe afkaaga mas'uulka ah afkeeda mas'uulka tahay wax kasta daa laga sheegay wax kasta daa la wadaba iyadu teeda ka adagta afkeeda ka adagta iska ma dhacayso waxaan ku leeyahay fanaanad waxaan leeyahay hore u socda runantii dad badan waxaan leeyahay Khadar Cabdi Silmooyo kala ku dayda sidoo kale waxaan arkay Yurub Maxamed Cabdi Geeyo oo tiri no meeshan ragii waa la iska qaaday Hodan Cabdiraxmaan oo kala Hodan Cabdiraxmaan oo kala meesha soo dhacaysay maadaama saaxiibada Khadar cidla la diray adiguna waxaan ku leeyahay xaajiga qari markaas waxay tiri xaajigayga waa ka ka silaabay iglan saalax bay kala wareerisay waan ku waa ka xaka ka silaabay xaajigeelkan buma joogad inaad wax la dafaan hayna anaga iyaga marka tarqa ku helay intaas rayga kaftan asxaabteeda qaaliga sidoo kale waxaan ogeyn inay tagtay waxaan ku leeyahay xamar oo kiyaray xabadii yaray Cabdi Fataax laga dafay marka dafowga iska jira waxaan ku leeyahay qaar badan horan waa laga dafay waligeed buu inaga ogeyn Yurubgeeyo in calacalka iyo waxaan ku leeyahay darada ma qalbiga rawarka had muradaya iyo waxaan ku leeyahay hadan jilaya jacayl ay ku jirtay laakiin waxaan u mareynayaa in hadda jawigii jacaylka ay gashay nolol farxad ay gashay waxaan u rajaynayaa in noqdakay ku degto ay ku bashbashto ku barwaaqaysato waxaan ku leeyahay ku reeraysato sidoo oran jiray aad iyo aad baasantiin kulay labada fanaan aan soo qaatay dadkii taageerada wax qalad ay arkeen wax qalad ma jirto kaftanku way naga dhaxay waana laba fanaan aad u jecelahay oo runtii aan taageero anigu kulay wax halkay soo fursin oo muxibadooda kalgacalkooda iyo saamir ka caysade markaas idinku aad iyo aad baasantiin asxaabteeda qaaliga waxaan leeyahay karaamo kulkina haato sharaf kulkina haato markastana xushmad iyo kalgacal iyo wanaag aad iga mudantiin way waxaa tin dad qaaliya oo aad iyo aad u jecelahay waxaan kaga tagayaa مع السلامة.